Soomaaliya maanta guul aad u weyn ayay gaartay taasoo ugu wacan in maanta ay Soomaaliya ama golaha wasiirada ay saxeexeen heshiiskii maalmihii u dambeeyay aad loo sugay kaasi oo ku saabsanaa heshiiska u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Turkiga ansixinta maanta ay ansixiyeen golaha wasiirada heshiiskan ayaa waxaa lagu sheegay ama si weyn u soo dhaweeyay dadka Soomaaliyeed waayo waxa la ogaa Ethiopia halka ay joogtay waliba damaceeda ku saabsan inay xoog ku qaadato bariga iyo badda Soomaaliya hadda marka waxaad moodaa Ethiopia in godkeeda uu biyo u soo galay waayo maanta waxaan dareemi karnaa Soomaaliya inay heshay mar kale walaal soconayo waliba ilaa 10 sano waa heshiiska hadda la galay barnaamijkan waxay la faaqidi doonaysaa markaasna si weyn u dhulduleeday saaxiibkay Dr. Shide oo ka baratay inta badan falanqaynta arrimaha geeska Dr. Shide oo soo dhaweynaya heshiiskan maanta golaha wasiirada ay saxeexeen ahmiyad nooceeb u leeyahay in ka soo wasaaraha Walaastan u sheegayba aad iyo aad badan mahadsantahay bidhaanow heshiiskan dawladda Soomaaliya ay maanta ku dhawaaqday inay golaha wasiirada iyo gabi ahaanba baarlamaanka dalka Soomaaliyeed iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay maanta si sharciyan ah u aqoonsadeen ama la ansixiyayba waa heshiis maartay guul weyn u ah ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogto waa heshiis dadka Soomaaliyeed gabi ahaanba qalbigooda ka saaraya cabsidii weyneyd ee ku jirtay in xeebaha Soomaaliya la qabsanayo oo duulaanka Ethiopia ay ku qabsanayso iyo gabi ahaanba dhulka bariga iyadana iyo badaba la qabsanayo gabi ahaanba meesha ka saaraya waa guul taariikhi ah oo ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay oo la dhihi karo jiilka soo socda iyo jiilasha ka dambeeyaba ama fursad weyn waxay sii doontaa dawladnimada Soomaaliya inay markale lagu wada guustaagto oo iyadu dhulkeeda ay difaacato heshiiskan waxa ku qoran 10 sano in ay dawladda Turkigu dhanka amniga iyo dhanka dhaqaalaha ay labada dawladood ka kaashadaan in ciidanka badda ee Soomaaliya ay Turkigu ay awood siiyaan oo dhisaan 10 sanana Turkiga looga dambeeyo xeebaha Soomaaliya 10 sanana ay gacanta ku hayaan marka heshiiskani meesha wuxuu ka saarayaa gabi ahaanba rabitaankii Ethiopia waxaan ogsoonahay dawladda Ethiopia waxay u ordaysay geed dheer iyo geed gaaban u fuuleysay inay hesho xeeb ama nuqul ay iyadu ay leedahay oo siday doonto ay u maamulato waxaad moodaa halkaasi inuu ku fashilmay gabi ahaanba rabitaanka Ethiopia markii hore berri meena u ordeynin ilaa berri Ethiopia ay cil qabtay ma jirin dalka Soomaaliya meel kasta ciidamadoodu way yaacayeen goob kasta oo ganacsi ama goob kasta oo dekada dhulka Soomaalida Ethiopiaanku way joogeen oo dhul berri oo Soomaaliya aan soo aragno wax weyn moona Ethiopiaanku ugu fadhiyeen laakiin waxa Ethiopiaanku geed dheer iyo geed gaaban u fulayeen ay u ordayeen ay qayla dhaantan adduunka dhan is qabsatay loo orday waxay ahayd oo kale inay bad helaan hadii ba xeebtii loo ordayay ay amnigii ay dalka Turkiga la wareegeen ayna maraakiibtii Ethiopia la lahaa Israa'iil iyo Talyaani iyo Faransa ya usoo sameeyay ama ka soo gateen iyo ciidamada lagu sheegay 35 kun ciidan badeed Ethiopia la soo tababaray hadayna xeebii Soomaaliya imankan waxa la dhihi karaa waa jab iyo naasabeel ku dhacay Ethiopia iyo burbur Ethiopia soo hoyday iyo fashil ku yimid rabitaankii korneelka salka fudud ee dalka Ethiopia wareeriyay marka hawshan waa hawl guul ah waana ugu hambalyeynaa dawladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya tallaabooyinka qaaday iyo meesha ay ka bilowday waa hawl guul weyn u soo hoyan karta sababtoo tahay Turkigu ma aha dawlad yar oo la dhayalsan karo ama la dhihi karo way khiyaami kartaa dalka Soomaaliya Turkigu meelo badan oo hore loogu tijaabiyay jiray oo wadamo badan oo saas kale u garab istaagay guulo waa weyn ayuu ka soo hoyday guulo waa weyn ayuu ka soo hoyay Turkigu ma aha dal ciid naga dhaxaysa ama badan naga dhaxayso oo leenahay ama nagu salbalaarsada ama hadhow aan badahena aan ka saar weynama laakiin waa dal walaaltinimo iyo saaxiibtinimo wax noogu qabanaya Turkigu waxaan ogsoonayn abaartii 2011 ka dhacday Soomaaliya sidoo Soomaalida u garab istaagay sidoo madaxweynihii dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan waqti aad u adag oo Soomaaliya soo booqday caalamka dhan uu soo jiiday in Soomaaliya la booqan karo marka Turkigu anu waxaan aaminsanahay dawladda Soomaaliya waxay qaban lahayd in anu shakhsi ahaantay waxaan ka kalsooni badanahay dalka Turkiga hadii maanta la dhiilaa Soomaaliya ayaa ciidamo loo soo tababaray ciidamada ilaalinaya waxaan dhiilaa kuwaasi waa laga awood roonaka wala soo jabsan kara laakiin Turkiga waxaan aaminsanahay inay hadda qayla dhaantii iyo dhawaaqii badna iyo sawaxankii jiray iyo walaaci badna ee dadka Soomaaliya soo wajahay dadku waxyaabo badan bay isweydiinayeen matal Ethiopia way soo dushalay qaabka looga hortagay bad ahaan waynaga u badan tahay loo maraakiib dagaalku waa gujis oo dhul badda hoosteeda maraya waxyaabo badan bay isticmaalaysaa ciidamo badan inaga tira badan maraakiib iyo maartay doomo dheerayo oo hubka culus saaran yahay inagu ma haysana ciidamo badeed oo badda ka dagaalami kara waa may ciidamadan way jiraan laakiin de magac ahaan bay ka jiraan ciidan tayaysan oo xeebaha maartay Seylac
إلا بربرة يقولك حدودها بدأ عصية باب المندب يملا بدن كده على مكانه ما هيسنو لكن بقى حوانا يسنا وحوي جيران شقينا يو دراغ يو مقاله لكن إذا أود أدان لنا إذا ما بدأ يتوب أنت كور تجان أي جبيهان بدها سومالي كده على oo ilaa maamulkii heshiiskan soo galay ay awood ciidan lagu caburinayaa ma haysano laakiin turkigu waxay awoodaan inay maraakiibtooda seel yimaadaan doomaha yararka kuwan Somalilandarku ama kuwa Muusabix maamulkiisu ay adeegsanayaan biyaha bas oo lagu firdhiyo ay qusayaan oo la waaya oo soo agdhawaan karaan maraakiibtooda weyn dagaal Itoobiya waa sidaas kale wala gaga sii awood badan yahay marka Soomaaliya fursad waxay helaysaa ay ciidamo ku tababarta badeed ciidamo lagu ay ku tababarta marka Itoobiya inay hadda ay meel ku dusha male Itoobiya qandaraaska iyo kontraktiga iyo waxa u socotay wuxuu ah inay xeeb hesho dekadaas ay dhisato Shiinays la keeno ay dhisaan ciidamadooduna ay ilaaliyaan kuwii beriguna ay fadhiismo ka sameeyaan xeebaha leelkooda kuwii baduna ay halkaas joogan oo la ilaaliyo shirkadahaasi ismuhuna u socdo hadiiba dhismihii una jirin xeebtiina ay jirin ciidan beriga Itoobiya muxuu jooga oo galay awdala galay oo banaanka duurka iska yaacay wax muhiim ay sheegayaan male marka hore Soomaaliland way dhaxyaacayeen oo Hargeysa berberi intay tagaan bay kasoo adeeg saraakiishooda waxay ku qayilayaan degada berberi ku qayilayaan maalin kasta halkaas ku dalxiistayeen taana wax na fahmalo maalkii Soomaaliya ay lugaheeda si fiican ugu istaagto waa caadi waa halkaas waa laga berigaas wax naf male jamhadaha lagu kicin wax weyn ma keenay hadda beriga ay tagaan oo calool xanuun badan ma sii jiro laakiin waxa laga baqayay inay xeebta intay degaan maraakiibta ay degaan halka ay ku xidaystaan wax gala la waayo oo maraakiibtii Soomaaliyeed iyo ganacsiga Soomaaliyeed uu xanib galo oo afduubaan oo dekad weyn halkaas ka dhisan oo dhahan canshuur marka maan cashuur maxaa Soomaaliya baa soo gali karaba ana anagu cashuur oo Soomaaliya ay meesha ka baxdo oo meesha weynaa lagu soo xidhay ay halkaas ay noqoto amniyada ay noqoto laakiin hawshaasi gabiyahanba way fashilantay Itoobiya gudmadooda way ku dhacday korneelku sidoo sheegay ay hadaan xeeb iyo bad gaarsiin Itoobiya way burburaysaa inay tiir rumuuday ay maanta u badan tahay wayna burburaysaa biidinilaahi kariim Itoobiya hawshuna meel fiican ay maraysaa sidoo kale waxa jira bidhaaro aan ku darsado siyaasadda Soomaaliya aad bay u cakiran tahay waxa jira madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud in uu rabo in uu maartay dastuurka wax ka bedelo dastuur wax ka bedelkan laba dhamaan ka fiirinayna madaxweynuhu ma dastuur loo dhan yahay oo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed hagaya ayuu wadaa mise mid asaga dantiisu interestiisu ku dhaxarko wadaa anu waxaan u arkaa qaabka Xasan Maxamuud u wajahayo inuu mid interesti oo asaga dantiisa ka tarjumayo sababtoo waxaan ognahay Soomaaliland way maqan tahay shacabka Soomaaliland waxa loo baahan yahay dastuur ay raali ka yihiin ayagu ay codeeyeen oo codkooda iyo dantooda ay ka dhaxarkeen inay halkaasi ka soo dhaxbo Puntland way maqan tahay dastuur rasiisa dadku waa wax dadku ay isku afkartaan isku xaliyaan waa inay shacabka Puntland ay meesha ma joogaan Jubbaland waa tan oo qudhigeedu ayadoo lagu fiican ku taagnayn oo kala go'aan oo maamul isku toosan kama jiro koonfur galbeed waa meesha ayadoo gaarka u go'an Xasan Sheekh Maxamuud hadii xildhibaano lacag la siiyay ama qori lagu caburiyo uu ku ansixisto أنا إلى إنه مقالة مقدسه دستور كاسي مقدسه ما يلقى بدأ إنه كشقين إلى ما شرع دون إنه نقول دون إلى ما لكن حسب واحد من ده إنه أصلا وصار نقضه تورشة ما مشرح من نقضه إنه كحلا عشان إنه الدستور ما نسعين وأنه كسرنا السياسيين دي قبل كمان درجة ودورنا دي أما مدحويني أشوار لما أنت تقيل الأمر كموجين وروحين ده دل كان علاد بدل ما جت نمن كير ركع ولا أود وسيكر ليسا على ماذا نقول تقريب لاين إثيوبيا دولار نوصله أمني وحول على غار مريم، ما كان أمني أنا قعدت كل جنو حبيت تلقى قعدت كل جنو اللي هو يسير على سؤال